daawo wiil dhalinyaro oo Falastiiniya oo tagay ceelkii Nabi Yuusuf calayhi salaam ceelka gudihiisana qoday kadibna wuxuu kala kulmay mucjiso aad u weyn oo dhammaan dadka ka yaabisay subxaanallah. laakiin waa codsi haddii aad muslim tahay muuqaalkan like saar si aan u ogaano dadka muslimiinta ee qalbiyada wanaagsan ee soo booqdo siina share garay si uu gaaro dhammaan muslimiinta. channelka subscribe saarto oo gambalelka u furato. waxaa jira gobollo iyo dawlado badan oo loo nisbeeyo ceelkan inuu ku yaalo. waxaa la sheegay ceelkan inuu ku yaalo Masar, dad kalena waxay sheegeen inuu ku yaalo dalka Suuriya. waxaa jira dad kale oo sheegay inuu ku yaalo magaalada Nablus ee dalka Falastiin. waxaana jira ceelal badan oo lagu magacaabo ceelkii Nabi Yuusuf, laakiin markii la cuskado daraasaadka ay sameeyeen taariikhyahanadu iyo markii la fiiriyo tilmaamihii iyo waxyaalihii lagu garanayay, waxay isku raaceen in badan oo ka mid ah taariikhyahanada islaamka inuu ku yaalo magaalada Nablus ee dalka Falastiin, gaar ahaan meesha loo yaqaano Qiblaan. badankoodana waxay isku waafaqeen ceelkan inuu ku yaalo magaalada Qiblaan oo qiyaas ahaan 18 kiiloomitir u jirta Nablus, sidoo kale 45 kiiloomitir u jirta magaalada Qudus. ceelkan ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Beerul Janaab, laakiin ilaahay kaliya ayaa og meesha saxda ah ee ceelkan uu ku yaalo. laakiin subxaanallah, wiilkan Falastiiniga ayaa go'aansaday inuu ogaado ceelkan Qiblaan ku yaala inuu yahay ceelkii Nabi Yuusuf calayhi salaam, wuxuuna go'aansaday inuu ceelka gudihiisa galo, wuxuuna aaminsanaa inuu ka helayo wax uu ku ogaanayo oo tusinayo ceelkan inuu yahay ceelkii saxda ah ee Nabi Yuusuf calayhi salaam. wiilkan dhalinyarada ayaa maalin go'aansaday inuu galo ceelkaas. markii uu galayna wuxuu ku arkay mucjiso aad u weyn subxaanallah. bilowgii markii koowaad ee wiilkan dhalinyarada uu ceelkan galayay wuxuu dareemay nafis aad u weyn, wuxuuna yidhi markii ugu horreeyay ee ceelka dhexdiisa lugahayga aan ku dejiyey waxaan dareemay inaan u guuray zaman kale, zaman aad u fog, sida inaan u laabtay muddo 6,000 oo sano ka hor ah. ceelka dhexdiisa ayuuna baarayay si uu uga helo wax tusinaya, laakiin waxba kama uusan helin ceelka dhexdiisa. wiilkan dhalinyarada ayaana yidhi ceelka nadaafadiisa ayaan aad ula yaabay. subxaanallah, ceelku markuu gorof yahay waxaa lagama maarmaana inay ku jiraan waxyaalo qurun iyo wasaq ah, laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah ceelkan dhexdiisa inaysan wax wasaqa ku jirin oo aad moodid hadda in la nadiifiyey. wiilka dhalinyarada ayaa la yaabay, wuxuuna yidhi ilaahay ayaa karaameeyey ceelkan, sababtuna waa inuu yahay ceelkii uu Nabi Yuusuf ku degay calayhi salaam. arrintaas oo dhan kadib wiilkan dhalinyarada ayaa qaatay go'aan waali ah. wuxuu go'aansaday inuu qodo ceelka gudihiisa, wuxuuna sheegay inuu aaminsanaa inuu ka heli doono mucjiso tusinayda ceelkan inuu yahay ceelkii saxda ah ee Nabi Yuusuf calayhi salaam. wuxuuna bilaabay inuu qodo ceelka gudihiisa. asagoo ceelkii qodaya ayuuna arkay mucjiso aad u weyn. subxaanallah, wiilkan dhalinyarada ayaa ka helay xoogaa dahab ah, wuuna sii qoday ilaa uu helay dahab aad u fara badan. aad ayuuna u yaabanaa markaas, wuxuuna yidhi halkaanu waa meeshii uu degay Nabi Yuusuf calayhi salaam. ilaahay ayaana siiyey fadli gooniya oo karaameeyey ceelkan kadib markuu ku degay Nabi Yuusuf calayhi salaam ilaa maalinka qiyaamada. wiilkan dhalinyarada ayaana go'aansaday dahabkan inuu iska dhigo ceelka dhexdiisa uusan ka qaadin, wuxuuna go'aansaday dahabkii inuu ciidda ku duugo oo sidiisa ka dhigo, wuuna ka cabsaday inuu qaato dahabkaas maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay mucjisooyinka goonida oo ceelkan uu leeyahay. sababta dahabka uu ceelkan ugu jirana waxaad ka fahmi kartaa qisada Nabi Yuusuf calayhi salaam. haddii aad codsataanna waan idiin soo gudbi doonaa, laakiin haddii aad muslim tahay ha dhaafin muuqaalkan adigoon sii sheer garayn like na saarin. fii amaanillah.